magaalada Hargeysa waxaa maanta ka furmay shirweynaha xisbiga mucaaradka ugu ballaaran oo uu ku soo dooranayo hoggaan cusub Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo ahaa asaasi xisbiga wadani oo xilka soo hayay 9 sanadood ayaa ku dhawaaqay in uu talada xilka si rasmi ah u wareejin doono bari laguna wareejinayo cidii la soo doorto wariyaha BBC-da Hargeysa Sidiiq Maxamed Burmad ayaa warbixintan soo diray dadan ku qiyaasay ilaa 1500 qof oo ku labisan astaanta xisbiga ayaa ka soo qayb galay munaasabadda in badan oo ka mid waa ergooyinka soo dooran doona hoggaanka cusub ee xisbigu uu yeelan doono taageerayaasha ayaa iyaguna qayb ka ahaa Axmed Cabdillaahi Cumar Xamarje oo ka mid ah saraakiisha wadani kana tirsan musharaxiinta u tartamaya ee shirguddoonka cusub ee la soo dooran doono ayaa nooga warramay xubnaha lagu soo dooran doono shirkan waxaa la dooran doonaa gudoomiyaha xisbiga iyo 6 gudoomiye ku-xigeen xogeeye ku-xigeen gudoomiyaha golaha dhexe iyo xubnaha qaybta odadka xisbiga oo lagu dooranayna meesha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro waa asaasaha xisbiga wadani xilka gudoomiyana soo hayay 9 sanadood ee xisbigu jiray gudoomiye Cirro waxa uu sheegay inuu jagada gudoomiyenimo aanu tartamayn وصدق إنه قفل مجنون وانها وعبدومي نقول 2012 marka 10 sano ku dhawaad baan hadda ahaa gudoomiye marka asla inta wixii ka badani waa mudadaaf waa muddo kordhin qof laba teerab xaq u leeyahay labadii teerab waan dhameystay oo marka asla intii aad xaq u lahayd waa dhameysatay laba xisaabaadka Soomaaliland waxa ku badatay bariyaha dambe bas siyaasadda isku aamino haddana siyaasadii aanay markaa ka boobin marka waxaan inaan abuuro is-aamin siyaasadeed oo dadka xisbiga ku jira ay iyaguna mudan yihiin inay u tartamaan jagooyinka ku sarreeya xisbiga marka haatan musharaxnimo madaxweynenimo markii labada gelaysa haddii aad guul dareysato iyo haddii aad guuleysato labadaba kadib maxaa ku xigay haddii guuleyso madaxweyne noqonaya haddii aan guuleysanna oday xisbiga ka tirsan wadani oo musdabeedkiisa la noqonaya haddii la ka dhigo Xirsi Cali Xaaji Xasan waxa uu muddo soo ahaa awoodda labaad ee xisbiga wadani haatanse isaga ayaa kursiga ugu sarreeya loo cimaamadaya waxaan weydiiyay qorshihiisa siyaasadeed ee mustaqbalka waxaan doonayaa dalkayga iyo dadkaygu inay gaadhaan wanaag iyo horumar oo haddii alla ka dhigo dalka iyo dadka iyo diintaba aan dhismaheeda ka qayb qaato waxaanan taa ku xaqiijin karaa hannaanka siyaasadeed dastuuriga ee Soomaaliland u yaala oo aan xisbiyada la soo maro marka waxaan maanta dhisayaa madaxweynaha ee barbar fadhiya ayaan dhisayaa madaxweynaha markaan dhisana waxaan doonayaa inaan madaxweynahan ku xaqiijiyo himiladaan doonayay hadduu xaqiijiyo inaan aniguna ku kaalmeeyo isku garab taago haddii qabyo noqdana aniguna inaan isku dayo inaan baaqiga dhamaystiro kasoo inay sharci tahay in xisbi kasta uu 5 sanaba uu hal mar qabsado shirweynihiisa haddana imaka tani waxa ay qayb ka tahay u diyaar garowga doorashada madaxtooyada oo sanad uun uu inaga xigo waxa bilaabmay ololihii bay ka dhigan tahay waana la isu sii xamaan guranaya Sidiiq Maxamed Burmad BBC